magaalada Laascaanood waa caasimadda gobolka Sool waxayna ka mid tahay 18 gobol ugu waaweyn Soomaaliya iyadoo gobolnimada qaatay 1980 waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu baabeeshinka badan dhulka ay Soomaaliya degto waana magaalo marba marka ka dambaysa sii balaaranaysa lana jaan qaadaysa wadamada caalamka ee horumaray haddaba TV-ga waa bari oo dhawaantan hawada soo galaya bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood mar uu mikrofoonka la qaaday waxay si aad u soo dhaweeyeen TV-ga waa bari oo ka mid noqday muuqaal baahiyaasha telefishinada caalamiga geesta kalena waxay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ay la dardaarmeen mas'uuliyiinta TV-ga waa bari waxayna ka codsadeen barnaamijyada ka bixi doona iyo sidoo kale dardaarana ku aadan qaabka TV-ga waa bari uga qayb qaadan lahaa horumarka dhulka ay Soomaaliya degto iyo sidoo kale xasilinta nabadda ummadda Soomaaliyeed waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood mar ay maanta la hadlayeen TV-ga caalamiga ee waa bari oo haatan ka mid noqday warbaahinta caalamiga ee afka Soomaaliga ku hadasha magacay waa maxamed Ismaan Cabdinuur ka mid ah warbaahinta kaalgasho gobolka Sool TV-ga cusub ee waa bari oo ka mid noqday muuqaal baahiyaasha Soomaalida ama telefishinada afka Soomaaliga ku baxa hadii aan nahay warbaahinta kaalgasho gobolka Sool aan afkooda ka hadlaya si aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaan ku dardaarmaynaa in uu noqdo mid ka duwan TV-yadii aan hore u jiray isla markaasna uu ka shaqeeyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed hadii ay tahay horumarka iyo nabadgelyada sidoo kalena uu soo daayo barnaamijyo qiimo iyo qaayaro oo bulshada wax ku soo kordhin kara oo ay ka mid tahay taariikhii soo jireenka ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ahaan jirtay TV-ga waa bari waxaan kula dardaarmaynaa in uu keeno wax ka duwan TV-yadii hore barnaamijyadii ka bixi jiray oo muhiimadda siiyo horumarka afka Soomaaliga suugaanta iyo sidoo kale ka shaqeynta maslaxadda ummadda Soomaaliyeed oo aad moodid in muddooyinkii u dambeysay dhibaatooyin badan ay soo kala dhaxgaleen gobolada dalka Soomaaliya marka TV-ga waa bari waxaan jecelnahay inuu noqdo mid ka duwan TV-yadii hore ee afka Soomaaliya ku bixin jiray dabcan waa TV cusub astaamaha ama dhextaalooyinkiisa waxaa ka mid ah heeso wadan iyo xilliga kacaanka la qaaday sida waaba bariye bilicsan oo halayso ama halkudhigwa marka waxaan leenahay waa bari waxaan rajaynayaa noqoto waa bari u iftiimay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhanka warbaahinta oo bulshada ka shaqeeya sidii dantooda iyo maslaxadooda iyo horumarkooda uu soo deyn lahaa hana noqon mid gacanta u gala siyaasiyiin ama shakhsiyaad gaar oo siyaasadooda ay ka dhex muuqato marka waa bari kulay waad cusub tahay wixii aanu oran lahayn waxay noqonaysaa marka waxqabadkaaga aanu aragno waan amaantaada soo jeedin laakiin intan waa dardaaran iyo talageliyo ku aadan qaabka aad u shaqeyn doonto oo maasantiin wariyaasha ka howlgala gobolka Sool oo dabcan Maxamed Axmed Bidaanshe oo ka mid yahay iyo mas'uuliyiinta TV-ga ka shaqeysa oo dhan yana waa salaamayna waxaan marka labaad soo dhaweynayaa TV-ga cusub ee waa bari waxaan kula dardaarmayaa ama kelmadeyda aan ka faa'iideysanayo ku oranayaa inuu noqdo TV u adeega bulshada runtii saxafigu waa wax ka turjumaya bulshada uu la nool yahay waxaan kula dardaarmayaa inuu noo soo tabiyo arrimaha diinta islaamka waxaan rabaa inuu noqdo TV u adeega arrimaha dhaqanka iyo suugaanta waxaan haysta musalsalaad iyo dad caraba oo dhaqanka ku xun inuu suugaantii iyo gabayadii Soomaaliyeed laga hadlo waxaan kaloo rabaa in anoo channel ka faa'iideysanayo aan halkan uga mahadnaqo Maxamed Axmed Khaatum Maxamed Yare oo runtii ah saxaafi karti badan dadaalay in badan oo dadaalkiisa juhdigiisana uu sameeyay deegaanka bulshadana ay ixtiraam badan u hayaan waxaan leeyahay horow socda magacaygu waa Cabdi Cali Gelle kamid waxa la yiraahdo bulshada ku dhaqan gobolka Sool haddaan ka hadlo ra'yigayga ku saabsan TV-gan cusub ee ku soo biiray muuqbaahiyaasha afka Soomaaliga ku hadla waa bari TV horta markooda aad baan u soo dhaweynayaa waxaan u hambaleynayaa maamulka iyo wax la yiraahdo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya TV-ga waxaan la wax la yiraahdo oo ugu faraxsan inaan ku soo biirtaan midda labaad waxa la yiraahdo waxaan jeclaan lahaa inaan uga faa'iideysto fursaddan maanta inaan TV-gan iyo wax la yiraahdo maamulkeedaba aan la dardaarmo midaan kula dardaarmayo waxa weeye bulshada Soomaaliyeed muddadii u dambeysay waxaa ku xubsatay wax la yiraahdo masiibo qaran inay u noqoto wax la yiraahdo saxaafaddu maanta halkay kaga jirto inagu og awoodda ay leedahay inay dhinaca positive-ka ka eegaan wax la yiraahdo maamul iyo shaqaalada iyagu isku duuban ay eegaan wax la yiraahdo ummadan wixii u dana inay ka soo hadlaan ama soo baahiyaan sidoo kale tona ay taariikhdeedii aasantay iyo ummadan waxay soo yaalahan u lahayd inay dib u raadiyaan oo soo bandhigaan kana ahaadaan dhexdhexaad aysan u afduubnaan siyaasiyiin iyo ashxaas magaca ama khaasa inaysan u afduubnaan aadna waxaan u salaamayaa Maxamed Axmed Khaatum ama Bidaanshe bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Cabdikariin Maxamuud Ismaaciil ana ganacsadaha Soomaali weyn waxaan soo dhaweynayaa TV-gan
hawada ku soo biiray waa bari TV waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa dhammaan bahweynta TV-gan isugu tagtay garatay inay maanta TV-gan hawada ku soo kordhiyaan waa TV Soomaaliyeed waa TV afka Soomaaliga kuwa ku hadla aan rajaynayo inuu noqdo ka ugu fiican ee ugu wanaagsan ee tayo leh ee warar sugan leh ee aan beer abuun lahayn marka waxaan aad u soo dhaweynayaa TV-gan waxaana aad u jecelahay barnaamijkan iyo TV-yadu waxa ay soo deynayaan in nimanka TV-gan iska leh ayaan ku baraarujinayaa in taariikhdii gobolladani ay lahaan jireen hadday gabayo noqoto hadday suugaan noqoto hadday mahmaayo noqoto hadday erenbixin noqoto inay taariikhda gobolladani lahaan jireen ee Soomaaliya ay caanka ka ahaayeen ay kaga duwanaayeen inay soo saaraan inay waliba ayaamo u asteeyaan oo barnaamijka labadii saacadoodba mar taariikhda gobolladan ay ku soo kordhiyaan magacayga waa Cabdiqaadir Cawd Caduur kuma macdheer gobolo waxaan soo dhaweynayaa TV-ga waa bari TV waxaan leeyahay magaalada Soomaaliya maanta waa TV-ga waa badan yahay laakiin TV-ga waxaan ka doonaynaa ka rabnaa hidiya dhaqankii suugaantii taariikhdii caanka ahayd ee Soomaaliya ay ku wada faanto ee laga faano Afrika oo dhan waxaan u baahannahay in aanu ka helno sida وبابري بلسان أرويا بحسن مال بقرة marka waan soo dhaweynaa TV-ga jira ha noqdo dadka Soomaaliyeedna waxaan doonaynaa si hagarlaan wax wada qabto inaan cidina ka soo caban dadkiisa afcaan noqon doonaa soo dhaweynaa kanaalka cusub ee ku soo biiray warbaahinta waa bari aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaan doonaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka ee cuslaatay waxyaabo badan oo TV-yada hore ka maqnaayay inuu noogu soo kordhiyo oo ay ka mid yihiin fankii suugaantii haddii aan ku leeyahay geeraaradii isboortigii dhaqankii caafimaadka haddii aan ku waxbarashada waxyaabo badan oo aan leenahay wararka oo xiiso leh oo isdaba jooga waxaasoo dhan baan doonaynaa kanaalka cusub inaad noogu soo kordhisaan oo naga haqabtirtaan aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa waa bari TV-ga cusub ee hawada soo galay waxaan leenahay jiro joog waxaan leenahay soo dhawow waxaan ka mid noqonaynaa macaamiishaada aad baan kugu soo dhaweynaynaa hawada magacaygu waa Cabdisamed Cawd Axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan ama ku nool gobolka Sool gaar ahaaneed Ascaanood waxaan soo dhaweynaynaa TV-ga waa bari TV oo dhawaanahan soo galay Arab Saidka waxa weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhammaan haddaan nahay bulshooyinka ku dhaqan gobolka saxaafadda ama waxa weeye social media ama warbaahinta wax loo baahan yahay bulshadana waxa weeye waxtar u ah waxa weeye meelo badan oo waxa weeye bulshada ka midana anfacaysa waan soo dhaweynaynaa mar koowaad iyo mar labaad waxaan kula dardaarmaynaa haddaan nahay anoo afkayga iyo afka dhalinyarada ku hadlaya TV-ga waa bari TV inuu noqdo TV waxa weeye ka duwan TV-yada kale kagana duwan waxyaalo badan sida inuu soo daayo kale suugaanta afka Soomaaliga ama soo nooleynta afka Soomaaliga inuu soo daayo kale taariikhihii soo jireenka ay lahayd dalka Soomaaliya kale inuu noqdo TV waxa weeye isku xidha bulshooyin meel joogto isku xidha inuu noqdo waxa weeye TV marka mar walba dhexdhexaad ah oo waxa weeye aan garab ahayn inuu noqdo TV mar walba ilsha ku haya dhanka waxbarashada sportiska waxa weeye meelo badan oo bulshada ka mid ah inuu noqdo TV-ga isku keeni lahaa waxa weeye dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba joogto marka waxaan leenahay wixii amaana waxaan sheegi karnaa insha Allah markaan waxa weeye aan aragno wax qabadkiina amaanu mahadcelinaya dhammaan hawlwadeenada ama maamulka TV-ga waa bari khaasatan hawlwadeedka ama waxa weeye maamulka gobolka Sool gaar ahaan Ascaanood u jeeda Maxamed Axmed Baanshe oo ah runtii shakhsi codkar iyo waxa weeye daacadnimo iyo waxa weeye kartinimo ay ku dheehan tahay ayna yar tahay shakhsiyad soo kala in laga helo marka gobolka waxa weeye waxyaalahan u maleeyay TV-gu inuu ku hormarayo ama waxa weeye TV-yada kale kaga duwanaan karo waxa weeye wariyaha sida Maxamed Axmed Baanshe marka waxa weeye dhalinyaro noocaas oo kale oo jecelaynaa TV-ga keentaan raxiim aniga waa Cabdiwali Jaac Maxamed oo ah kamid ah dhalinyarada gobolka
waxaan aad u soo dhaweynaynaa TV-ga Waaberi oo ah TV-yada mid ka mid ah TV-yada ku soo biiraya gobolka mandaqada Soomaalida aan u soo dhaweynayno waxaan ku yara baraarujinayaa maamulka TV-gan cusub inay wax badan kaga duwanaadaan TV-yadii hore ee dalka ka jiray iyadoo la eegayo nidaamka saxaafadda caalamka la tixgelinayo iyo sida saxaafadda dunida uga shaqeyso oo waxaad moodaa in haddeer Soomaalidu ay dagaalkii qoriga ay saxaafadda ka bilaabeen waxaan ku dardaarmayaa inaynan ka qayb qaadan dagaalka saxaafadda oo aad noqotaan saxaafad bulshada Soomaaliyeed oo adeegta waxtar fara badan ku soo kordhisa TV-ga waa barta markii hore waan soo dhaweynaynaa anagoo waxaan ku suganahay Aaran waxaan doonaynaa TV-ga cusub ee hadda hawada ku soo biiray TV-ga Waaberi in macnaheedu kuwii hore waxyaalo ka duwan oo macnaheedu waxa weeyaan khaas ahaan gobolka Sool quseeya inuu soo kordhiyo oo macnaheedu sida suugaanta wacyigelinta bulshada horumarinta gobolka horumarinta dhalinyarada aniga hadda dhalinyarada waxyaalo fara badan baan doonaynaa macnaheedu TV-yadu ay naga horumariyaan oo macnaheedu si aan u midowno ama aan u sameysano kala dhaliyaan ahaan waxaan aad iyo aad maanta halkan ugu hambalyeynaa kuna soo dhaweynaynaa TV-ga Waaberi TV oo ku soo biiri doona TV-yada gobolka Sool ka jira iyo dhammaan Soomaaliyada inta ka bacdi markaan kaga baxo soo dhaweynta TV-ga iyo farxadiisa aad iyo aad baan ula qabnaa farxadiisa waana soo dhaweynaynaa waxaan kaloo aan u dirayaa fariin dhammaan administrationska iyo maamulka TV-gaba in protocolka iyo nidaamka TV-gaba la ilaaliyo maadaama oo hadda saxaafadda ay ku soo badanayaan hambalyo baan leeyahay TV-ga cusub waana soo dhaweynayaa bismillaah alxamdulillaah waxaan maanta halkan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa TV-gan cusub ee ku soo biiray saaxadda warbaahinta Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Waaberi TV haddii aanu nahay dadweynaha ku dhaqan ama shacabweynaha magaalada Laascaanood waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa TV-gan cusub ee warbaahinta ku soo biiray waxaanu leenahay ku soo dhaw saaxadda warbaahinta Soomaaliyeed waxaan halkan fariin uga diranaa mulkiilayaasha iyo maamulayaasha iyo agaasimayaasha TV-gan cusub ee hawada soo galay waxaanu leenahay horta ku soo dhawaada marka hore saaxadda warbaahinta waa marka labaad warbaahinta Soomaaliyeed aad bay u tiro badan yihiin haday tiro badan yihiinna waa inay wax ku kala duwanaadaan marka wax cusub oo kuwii hore ka gedisan ama ka horumarsan ama bulshada faa'iido u leh ku soo kordhiya markaasuu TV-guna magaciisu magac weyn noqonayaa ummadana aad u faa'iideynaysan markastana waxaanu leenahay dhanka wanaagsan ee bulshada isu soo jiidi karta magaciigu Maxamed Cali Cilmi waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada Laascaanood ee dhigata jaamacadda Nugaal University waxaan aad u soo dhaweynaynaa wixii horumar deegaanka ka qabsoomayo dhan haday noqoto dhanka saxaafadda haday noqoto dhanka jaamacadaha haday noqoto dhanka dabooyinka ka hawlgalay deegaanada Soomaalida oo dhan hadda waana TV ku cusub hawada Soomaalida waxaan leeyahay TV-gan waa soo dhaweynaynaa waa la shaqeynaynaa waana TV aan jecel lahay in barnaamijyadiisa iyo wararkiisuba ay noqdaan iyo suugaantiisa iyo dhaqankiisa oo dhaniba TV-yada Soomaalida maanta meesha ay joogaan kor uga sii qaada oo meel ka wanaagsan geeya waana TV aan jecel lahay inuu nabadda ka qayb qaato inuu horumarka ka qayb qaato inuu ka qayb qaato dhammaan waxyaalaha adeegyada bulshada ah waana TV aan jecel lahay inuu noqdo number 1 bismillaahir rahmaanir rahiim magaca Muxtar Cabdi Jaamac waxaan soo dhaweynaynaa TV-gan cusub ee Waaberi TV runtii waxaan leenahay noqo TV ummadda dhexdhexaad ah oo bulshada u shaqeeya kana duwan TV-yada hore qaabka u shaqeeyaan oo waxyaalo cusub hawada ku soo kordhiya waxaan u mahadcelinayaa sida Fariim Maxamed Axmed Badaash oo isagu TV-ga uu kaga noqon doono gobolka Sool waxaan leeyahay saaxiib noqo mid dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeya waan hubaa inaad leedahay karti aad kaga shaqeyn kartid oo bulshada wax badan ugu qaban kartid waana soo dhaweynayaa TV-ga cusub ee Waaberi TV waxaan leeyahay hambalyo magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Aagar waxaan ka mid ahay odayaasha gobolka halkan waxaan ku soo dhaweynayaa TV-ga Waaberi TV waan ku soo dhaweynayaa aad baan u soo dhaweynayaa haddaan nahay bulshadeynta ku nool gobolka Sool gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay welcome to open hands waan leenahay gacmo furan ku soo dhawow anigu aad baan u jecelahay TV-yada Soomaalida waan daawadaa wali waxaan rajeynayaa TV-ga Waaberi inuu noqdo TV-yada afka Soomaaliga ku hadla TV-ga aan ugu jecelahay aan aad u daawano
waxaan kaloo halkan ka salaamayaa wariye Bidaansho isaguna wariyaasha ugu activity-ga badan gobolka waxaan leeyahay oo aan u sheegayaa maamulka TV-ga iyo qolada barnaamijka TV-ga wadada inay barnaamijyada wax ka dhigaan barnaamijyo moderate ku hor ka casrisan oo ay u badiyaan xagga Suudaanta fanka Suudaanta way waxa arkaysaa TV-da afka Soomaaliya ku hadlayay de fanka Suudaanta baa laga tagayo musalsal iyo waxaan garanayno itigiisa akhlaaqiyada aan fiicnaynba ودمرك عروتها نفع أنا بعطونه فرا ورسك محاكدة ونسا حرجيني تيفي ونقول تيفي ورك يسوي حد حاديين. من إلى ما تسكله ما أنت تاريخ تاعي صدق دي بشي لبيتونا الله بدكم اللحية طبعا وحنو حل إلى سودوين إن تيفي وبري وعتيف إن شاء الله وحنرجينا تيفي كان عصب إنه كقيب قاطع أرمها هرم مرنتا أرمها النبت جليدة arrimaha abaaraha inuu ka qayb qaato insha Allah oo uu nagala shaqeeyo sidii awalba maxaa la yiraahdaa TV-da kale noola shaqeyn jireen waan soo dhaweynaynaa TV-ga doonina hadii Allah inuu waxa lagu jiraa xaalad adag oo abaareed waxa lagu jiraa xaalad adag oo nabad colaadeed insha Allah inaad nagala shaqeysaan insha Allah waxaan rajaynayaa maxaa la yiraahdaa in aad hidihii iyo dhaqankii uu gobolka Sool taariikhda u lahaa sida gabayadii Ismaaciil Mire gabayadii maxaa la yiraahdaa jaakadii gabayadii Ali Dhuux inaad suugaanta dib u soo celisaan inaad ka shaqeysaan dhaqanka waayo dhaqankeeni aad uu sii hoos ugu sii dhacaya. Bismillahir Rahmanir Rahiim magacaygu Maxamed Farax Qudus waa la igu naanaysaa waa soo dhaweynaynaa warka TV-ga oo bari barihan buu soo gaarayay waa soo dhaweynaynaa TV-ga waa bari insha Allah waa ku soo dhaweynaynaa magaalada waa la shaqeynaynaa insha Allah wax rajaynaa oo shaqo fiican dhex marto haddaan nahay shacabka magaalada Laascaanood iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba insha Allah ku soo dhawaada magaalada Laascaanood ku soo dhawaada wadanka insha Allah wax rajaynaa shaqo fiican oo ka duwan TV-da hore shaqada qaban jireen waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa oo aan ku soo dhaweynayaa barnaamijka ganacsiga horumarka gobolka inuu ka taliyo telefishinka waa bari oo telefishin cusub oo hadda gobolka soo biiray waxaan u soo dhaweynayaa si baaxad leh maadaama Maxamed Ali Sharmaake ay ahaayeen laba wariye oo markii horena ahaa dhalinyarada aad ku furan ee ka mid ahaa rag barnaamijka iyo horumarka gobolka qaabsanaa hadda tana ay yihiin rag wali hawshooda sii wata insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku sii bogaadino soo dhawaano الله كدغو بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu ka soo dhaweynaynaa halkan adaamnahay bulshooyinka reer Sool TV cusub oo hawada soo galay oo la yiraahdo waa bari TV oo aan isleenahay bulshada wax badan buu ka bedelayaa waxaan leenahay soo dhawaada qoladiina shaqaalaha maamulayaasha iyo cid walba isku taxalluujisay inay gobolka wax u qabato waxaan soo dhaweynaynaa halkan TV cusub oo hadda shaqadaha soo galay oo magaciisa la yiraahdo waa bari waxaan leenahay soo dhawow حاجة صحافة قبل كسول عادي عاد بيغير اللي عسنايد وحنو جعل هاي كوي هراء إنه كانوا كفي عن هذا وكشغايو باهيها كلا دوانة بالشدة كنا القول كا سيدا وحيابها قولنا كلا عينا كجهر مرسيين تيفية إن حيسيسي ومدي بنو مهردي هدي ميال لقى فرصة قولنا كلا والله حيسيا تيفية حيسيس بيكو قاتان إنه قوارهم بنسيدينه waxaan dayana ganacsatada la xiriiraan adaa timbaha saxaafada ayagoo Maxamed Farax waxaan soo dhaweynayaa TV-ga cusub ee ku soo kordhay hawada ee waa bari waxaan doonayaa inuu hawada ku soo kordhiyo waxyaabo aan TV-yada kale aan hore u sii deyn waxaan ugu soo boornayaa inuu aad noogu sii daayo waxyaabaha suugaanta iyo sportska ayagoo waa Saalim Cabdirashiid Daahir waxaan soo dhaweynayaa TV-ga la furay wax ka duwanaado TV-ga waa bari TV-yada kale ha soo daayo suugaantii taariikhda daraawiishta iyo wixii waxyaabihii lagu yaqaanay deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ana kamida dhalinyarada gobolka Sool oo magacaygu yahay Cabdiwahaab Aadan Cali waxaan soo dhaweynaynaa TV-gan cusub waa bari TV oo dhawaan ku soo biiray gobolka hawadan hadda TV-gan loo baahan yahay buu ahaa TV-gan aad soo dhaweynaa insha Allah hadana dhalinyarada gobolka Sool iyo cid kasta gobolka nool way soo dhaweynaysaa
TV-ga waa beri oo dhawaantan hawada soo galaya xaruntiisa weyn waxay ku taallaa magaalada London ee cariga Ingiriiska waxaanu ka howlgali doonaa guud ahaanba caalamka oo idil hadalhaynta ugu badan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa ahayd TV-ga cusub iyo waxyaabo kaga duwanaan doona TV-da kale iyadoo dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ay mar labaad si aad u soo dhaweeyeen magaca TV-ga waa beri kaas ay ku tilmaameen inuu yahay kii iftiimin lahaa bulshada Soomaaliyeed Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe warbixinta maanta waa beri magaalada Laascaanood